bini aadamku qofku inuu run sheegayo iyo in kala siyaabaa loo qiyaaso. nabigu calayhi salaatu wasalaam waraaquu qoray waqtigii sulxu xudaybiya markuu quraysh heshiiska la galay ayuu waraaqo wuxuu u qoray boqorradii dunida isagoo leh waar islaama waa nabadgeli doontaane. waraaqaha uu boqorrada u qoray maalan warqad ka mida waxaa ka waramaya abu sufyaan ibnu xarb intaanu soo islaamin markuu gaalka ahaa iyo wuxuu la kulmay. quraysh safar bay diri jirtay mid ah waqtu shitaa iyo waqtu sayf, midna xaggan iyo yaman bay usoo diran jireen, midna waxay u diran jireen shaam bay u diri jireen. abu sufyaan wuxuu leeyahay safarkii aanu shaam u baxnay boqorkii romanska ka talin jiray dowladdii waqooyiga markaa ka talinaysay romanska la odhan jiray albizantiya magaaladan istanbul la yidhaahdaa caasimadda u ahayd constantine ayaa markii uu guulaystay ee ka guulaystay nimankii bershiya uu jabiyey dagaalada qur-aankuba ka waramayo fi suurati rum ayuu soo inuu meeshii bayt ilmaqdis ay iman jireen oo cibaado u iman jireen buu yimi. meelaha markuu yimi baa waxa uu timi warqadii nebiga calayhi salaatu wasalaam, waraaqdii uu nebigu u soo diray. waraaqdii markii uu helay ayuu wuxuu isku dayay inuu ogaado bal ninkani horta wuxuu sheegaya inay run tahay iyo in kale. qofka bini aadamka haddaad rabto inaad ogaato taariikhdiisuunbaa la baadhaa. taariikhdiisa haddaad baadho markiiba waad caddayn kartaa inuu run sheegaya inaan run sheegay. nebi maxamedna daa markii waxyi uu kusoo degay hortiiba maxay loo yaqaanay asaadiq ilamiin. wuxuu ihi waa ninkan cid la dhalatay cid garanaysaa ma joogtaa magaalada. waxaa la yidhi ha safar baa jooga maka ka yimi igu yeedha buu yidhi. waa loo keenay. waa dhowr nin. wuxuu ku yidhi waxaan idin weydiiyo kiinee ugu dhow qaraabanimo intiina tan kiinee qaraabanimo ugu dhow. abu sufyaan baa yidhi dee aniga. abu sufyaan iyo nebi maxamed xaggay isugu yimaadaan? waa reer bani cabdimanaaf soo maaha. nebigu waa moxamed ibnu cabdillaahi ibnu cabdilmutalib ibnu haashim ibnu cabdimunaaf. markaa waa awowga saddexaad bay isugu yimaadaan. yani cabdilmutalib baa awowgii ruma ah, haashim baa ku xiga, cabdimunaaf baa ku xiga. abu sufyaanna cabdimunaaf buu yimaadaa. abu sufyaan baa wuxuu yidhi anaa isugu reer dhow, anagaa isu jiliba. abu sufyaan buu yidhi halkan hore soo fadhiiso. nin turjubaanana halkan buu yidhi fadhiiso. intii kalena abu sufyaan buu daba fadhiisiyey, xagga dambe ka fadhiista buu yidhi. wuxuu yidhi ninkan waxbaan weydiin doonaa ee hadduu been ii sheego waa beentii dhaha intiina dambe. waayahay baa la yidhi. waa boqorkii dee markaa dunida u xoog badnaa. waa kan maraykanka oo kaleu markaa dunida ka ahaa heracles. waayo waa labadii dowladood ee dunida ugu xooga badnaa, weliba tii xoogeysatay markaas iyo ta kala jebisay. meeshuu fadhiisiyey. abu sufyaan markii uu meesha fadhiisiyey buu wuxuu ku yidhi maa qaraabatuka, adiga iyo isaga maxaa idin dhexeeya? waxaan idhi buu yidhi de waa bnu cammi, waa in adeerkay oo wax reer banu cabdimunaaf oo kale halkaanu joogaa ma joogo. soo dhawow buu yidhi adigu halka fadhiiso. kadib buu wuxuu weydiiyey kayfa nasabuhu fiikum, reerkooda bal ka waran siduu yahay? waxaan idhi buu yidhi huwa duu nasab, reer magacalu ka dhashay. wuxuu weydiiyey aabbayaashii cid waxaanuu ku hadloo kale weligood ku hadashay ma leeyihi? abu sufyaan wuxuu yidhi maya. wuxuu yidhi waxaan kaloo ku weydiiyey aabbayaashii wax boqor ahaan jiray ma ku jiraan? waxaan idhi buu yidhi maya.
wuxuu weydiiyey ma odayadii iyo duqaytida raacday iyo madaxda mise ducafada raacday dadkaan waxba haysanin waxaana lagu yidhi maya ducafada raacday wuxuu weydiiyey ma badanayaan mise way yaraanayaan markii hore inta la raacay miyaa laga kala yaacay mise ciddii gashaa soo noqon maya waa la badanaya wuu sii badanayaa waxaana lagu yidhi bal yaziiduun waa maya korayaan waa sii badanayaanu wuxuu yidhi dadkii galay ma haysaan qaar intay diintiisa ka cadhoodeen dib uga soo baxo ka soo noqday wuxuu yidhi may waxa gala naguma soo noqdaan wuxuu weydiiyey wax beena ma ku tuhmi jirteen wax beena waa ku tuhmteen ma jirtaa abu sufyaan wuxuu yidhi may wuxuu ku yidhi hal yaqdir ma khiyaameeyaa dadka ballamada iyo wuxuu galo ma khiyaameeyaa abu sufyaan wuxuu yidhi maya hore uma khiyaamayn laakiin iminka muddaanu ku jirno ka soo fogeyno garan mayno wuxuu yaalay meel kaloo aan wax ka geliya waan waayey buu yidhi waa gaal abu sufyaan marka kan meel kaloo aan ninkan ka dura waan waayey buu yidhi halkaa mooyaane oo dee isaga iyo nebi maxamed waxay wada saxeexdeen maxay heshiiskii sulxu xudaybiya 10 sannadood inaan la isku soo duulin dabeetana wuxuu leeyahay intii aan iminka safarka kusoo jira soo muuqnaa haddaanu bala dhigin markii hore waxba muu samayn jirin wuxuu weydiiyey ma la dirirteen haa buu yidhi dagaalkiinu siduu ahaa buu yidhi alxarbu baynana sijaal buu yidhi dee dagaalka iyagu waa sijaal yani marna waanu ka guulaysanaa marna wuu naga guulaystaa intaas oo su-aalood kuma jirto su-aal diinta ku saabsane intaasoo su-aalood waa dhaqankii nebi maxamed buu raadcaynaya iyo ninkani kuu yahay inuu ogaado horta iyo taariikh nololeedkiisa iyo qaabku u dhaqmo kadib buu wuxuu ku yidhi maada ya'murukum muxuu idin faraa wuxuu yidhi wuxuuna faraa ilaahay caabuda keligii oo cidna ha ku lamaanaynina cidna ha ugu shirig yeelina wixii aabbayaashiin caabudi jirina iskaga taga salaada la kaalaya runta sheega cafaaf dhowrsooni la kaalaya qaraabada xidhiidhiya waxaasuuna faraa buu yidhi waxawaalay in ku dhadhow 14 su-aalood buu weydiiyey abu sufyaan oo uu ka warsanayo ninkaa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa iyo aabbayaashii iyo taariikhdiisa iyo wixii la mid a interviewgan muxuu u qaadayaa heraqal hadduu isaga ka jawaabaya heraqal turjumaankiisii wuxuu ku yidhi waxaad u sheegtaa waxaan ku weydiiyey nasabkiisa reerku ka dhashay waxaad ugu tiri reer magac iyo maamuuslu ka dhashay fakadalika rusulu tubcath buu yidhi rusushana reeraha mudankaabaa ilaahay ka soo saari jiray waxaan ku weydiiyey buu yidhi tolkiisii hore waxaanuu sheeganaya wax sheegtay oo kale ma leeyiin may baa tidhi hadday ku jiri lahaayeen waxaan odhan lahaa buu yidhi awowyadiibuu ku dayanayaa wixii ay sheegi jireen buu sheegaya waxaan ku weydiiyey buu yidhi aabbayaashii wax boqor ahaan jiray ma ku jiraan may baadi tidhi waxaan isweydiin lahaa buu yidhi ma siyaasaduu isleeyay boqortooyadii ku gaadh baa tani laakiin waxaad tidhi boqortooyo hore ka luntayba ma jirto waxaan ku weydiiyey buu yidhi been ma sheegaa waxaad tidhahdeen wax beena kuma hayno ambiyadu waa saas buu yidhi oo been laguma hayo waxaan ku weydiiyey buu yidhi dadka ma odayada iyo madaxyaweyntaa raacday mise ducafadaa raacday waxaad igu tidhi ducafadaa raacday ambiyadu waa saas buu yidhi oo ducafadaa raacday oo madaxdu xaqa ma fahmaan miya maya bini aadamku inuu xaqa fahmo qura kuma raaco bini aadamka badh baa intay xaqa fahmaan haddana is idhaahda maslaxadaada iyo dantaadu malaa imika kuma jirtee ka warwareeg mala sidan kale maslaxadu kuugu jirtaa ducafada iyo foqorada laakiin masaalixiba kama lunto awalba waxba may haysanin iyagu hadday iimaanka qaataan waxba kama xumaadaan waa kusii fiicnaadaanuun
laakiin ninka madaxda waxa laga yaabaa inuu sidaa madaxnimadaad waayey arma dhaqaalaa weydaa armaad odaynimadaada weydaa arma maamuuska kaa xumaada arma dadkan ducafada abaad meel la fadhiisanaysaa iyo kuwaba isku naadi noqonaysaan caqliga ma gashay inaad qolyaha la fadhiisa ninka madaxda ahi wax badan oo kale wuxuu xaq ma yaho qura ma eego ee waxyaabo kale u eegaa waxaanan idin tusi isaga hiraqa laftiisa oo eegay Herakles wuxuu yidhi marka waxaan weydiiyey buu yidhi yaa raacay waxaad igu tiri buu yidhi ducafadaan raacday ambiyadana waa sidaasi oo kale waxaan ku weydiiyey buu yidhi dadkiisu miyay sii ziyaadayaan mise waa nuqsaamayaan waxaad igu tiri buu yidhi waa ziyaadayaan waa amru liimaan baa caynkaasiya buu yidhi iimaanka arrinkiisa ayaa inuu biiro waxaan ku weydiiyey buu yidhi dagaalkiina ka waran waxaad tiri buu yidhi alxarbu baynana sijaal aw duwal waa dagaalkayagu waa marna waa ka xoog badanaa marna waa naga xoog bataa rusushuna waa sidaas buu yidhi oo inta hore waa la itixaamaa oo marna waxbay jibiyaan marna waa jabaan laakiin cidhibta dambe ay yeeshaan buu ku yidhi guusha iyagay ku dambaysaa laakiin fakta horeba ma guulaystaane marka hore imtixaan baa la mariyaa rususha iyo dadkan la socda iyo inay dad hunguridoona iyo madax haddaad u timaado nin markuu yimaadaba guulaysanaya dee haniimada wax ka qaadunbaad sodhanaysaa meesha waa lagu guulaysanayaa laakiin meel marna la jabayo marna la dhimanayo marna la baaba'ayo markay tahay haddaad u rumaysan tahay inay xaq tahay unbaad ku hadhaysaa laakiin buu yidhi rusushu gebagabaday leeyihin waxaan ku weydiiyey buu yidhi war dadka wax diinta ka baxay ma jiraan waxaad igu tidhi may fakadalik iimaanku waa sidaas buu yidhi hadduu qalbiga dhex galo waxaan ku weydiiyey buu yidhi waxba khiyaameeya may baa tidhi rusushuna waa saasoo kale waxba khiyaameeyo waxaan ku weydiiyey buu yidhi maxaa uu idin faraa waxaad tidhi ilaahay keligii in la caabudo sanamada la yskaga tago salaada la tukado la dhowrsanaado cafaafa arrimaha aad sheegtay oo dhan Herakal wuxuu leeyahay markaa sidaa aad iigu warrantay arrinku hadduu yahay sidaa aad iigu warrantay arrinku hadduu yahay halkan maanta jooga buu qabsan doonaa buu yidhi bayt almaqdis buu joogaa Herakal wuxuu leeyahay halkan aan joogo isaga qabsan doona buu leeyahay waanan ogaa buu yidhi in nebi soo baxayo waa nin ahlu kitaab ah waan ogaa in nebi soo baxayo maan se u malaynaynin inuu qoladiinan carbeed noqonayo maan u filaynin buu yidhi ee haddaan awoodo waan u lugayn lahaa oo cagihiisaan maydhi lahaa dabeetana wuxuu yidhi balkeena waraaqdiisa waxa ku qoran weli lama akhrinin waraaqdii nebi maxamed soo diray ee waxa la baadhayaa oo waxaanoo interview loo qaadayaa ninkan iyo wuxuu yahay in la ogaado haatanse waxa u caddaatay inuu nebi yahay waraaqdii baa la akhriyey waraaqdu waa maxay بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله وحي كتب محمد وإلهي أدون كيسية رسول كيسية وحانا كسقطا هرقل وعظيم الرومة دقة غير رومة سلام على من اتبع الهدى سلام كركي سهاها تعدي هنونك الرعضي انت كذا شد وحن كوغو يريا إسلام بان كوغو يريا إسلام ودنا بدقليساي أجر كاغرا لaba jeer baad helaysaa tii horaad kitaabkiina raacday iyo tan dambaba laba goor baa lagu siinayaa haddaad ka jeesatana dembiga arisiyiinta yacni dadkaad xukuntay ahlu kitaabka dembigoodaad qaadi doontaa haddaad diinta dhaafiso intaasaa warkii nebi maxamed oo ku qoran dabeetana nebigu aayad qur-aan ugu daray yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'an baynana wa baynakum ahlu kitaabu kelmadu kaalaya inoo dhex ah annaga iyo idinkaba anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay-a aayadda qur-aan waxay sheegaysaa war ahlu kitaabow meel dhex isugu keenkeena meesha dhexe la isugu imanaya waa maxay inaynu ilaahay keligii caabudno oo inaan cidna ugu shariig yeelin oo aan badhkeenna badhka kale rabbi ka dhiganin ilaahay sokadii haddaad sidaa diidaanna annaga markhaati nooga ahaada inaanu muslimiin nahay oo anagu aqbalnay ilaahay raacnay أبو سفيان مركاسو وحيدي لقد مر أمر ابن أبي كبشة نبي محمد بيقولي وحي شيء إن أبي كبشة
والله arrinkiisii weynaa buu leeyahay haddii boqorka Rome joogaaba ka baqayo ninkaanu maka isku haynay haddii ninka Rome joogaa ka baqayo buu leeyahay boqorka Constantine ka taliyaaba hadduu ka baqayo arrinkiisii waa weyn yahay buu yidhi innahu yakhaafu maliku bani al-asfar buu yidhi qadiyadii markay halkaa marayso ayuu Hiraqal dadka kala saaray wixii culamadooda ahay oo dhan buu isugu yeedhay bal kaniisadu ku xareeyay albaabadu u wada xidhay wada qafila buu yidhi albaabada markii la wada xidhay oo ciidankiisii intaa amray ayuu isugu yeedhay wuxuu ku yidhi waryaadhe waa ogtihiin in nebi soo baxayay ninkaa laga warramay waraaqdaa soo dirayna waa nebi aan raacno dabeetana wadaadadiisii baa qayliyey wadaadadii kiristanka ayaa qayliyo waaba yaaceen albaabada ka baxays yidhahdeen albaabadiina waa wada qafilan yihin kadib buu yidhi fadhiista haddaba waxaan eegayey bal waxa ay yeeshaan iyo diintiina sida ugu adag tihiin teeni baynu haysanaynaa Hiraqal wuxuu arkay hadduu islaamnimada qaatay inaan la raacaynin dabeetana waxay isu soo taagtay boqornimadii Rome inuu haysto oo kiristankiisa ahaada iyo inuu muslimo daaqada laga tuuro ama se la dilo waa meeshan masaalixdii baa timi watan idin xaqo qura dadku marar badan buu masaalixda eegtaa wuxuu eegtay maslaxadiisii ahayd inuu ilaashado boqortooyadiisa